hello, 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 hello. Wa uriya uriya irani dawen mahalasada haitiyo qoladinu maher qaramba uriya uriya haitiyo qoladinu maher qaramba uriya hankaagan yarbeenta miyaad ku habtaa. qurba joogta iyo dal joogta waxaa u dhexeeya fine line, yacni lamaba kala saari karo. intii Soomaaliya burburka jirtay dadku marna waa xaggay u yaacayeen, marna halkaan usoo yaacayeen. marka qurba joogta haddii lagu qiyaasayo baasaboorka, Soomaali badan ayaa baasaboorka jooga laakiin aan dalka weligood joogin, baasaboor haysta ajnabi ah laakiin dalka weligood joogay. si kasta ha ahaatee muhiim ayay tahay in Soomaalidu meel ay joogaan ama qurba joog iyo dal joog ha kala ahaadeen ama shacab iyo maamul ha ahaadeen ama shacabka dhexdiisa ee gobollada Soomaaliya oo dhan ha ahaadeen ama rag iyo haween ha ahaadeen ama dad waaweyn iyo dhalinyaro ha ahaadeen. qurba joogta inay ixtiraamto dal joogta day tabasha jirto waa loo baahan yahay. dal joogtuna inay gartaan in qurba joogtu ay Soomaali yihiin, shalay Soomaali kula ahaa, maantana Soomaali kula ah. it's so happened inay iyagoo xabad ka cararaya ay dhowr bilood ama sanadood ay tageen dal kaleeto. marka horta isfahamkaas waa loo baahan yahay iyo iskaashigaas oo across maaragtay maxaa la yihahdaa qaybaha bulshada oo dhan ah. saasaa ummaduhu ku dhismaan. saan hore usoo sheegay horta qurba joogta iyo dal joogta si loo kala saaraa waa adag tahay oo dee movementigu ama isdhexgalku fluid buu ahaa, marna xaggaa la tegaya marna intaa la imaanay. yaa maalan qurba joog ayaase dal jooga. qofka Nairobi joogay dal joog miyaa mise qurba joog waay? waxaan leeyahay dal joog. qofka Imaaraadka joogay, qofka Soomaaliga ahi waa laba mid. qurbihii uu ama ku tegay qaxa ama uu doorashada ku tego joogaa qof bini aadan oo jira oo nolol leh oo muxtaram uu ku noqon karaa meesha uu joogo. haddii uu ka soo laabto dalkiisa yimaadana wax walba oo xaaladdu tahay saraaxo dhammaanteed waxaan aaminsanahay inaan lagu darsanayn. dhibaatooyinka jira dabcan dad badan ay saameyn doonaan, laakiin guud ahaan waxaan rabaa inaan idiin sheego xaaladihii adkaayoo la soo maray iyo tan maanta aan joogno u eg dhibaataba aan ku qabno ayada lafteeda, laakiin in laga sii baxayo u eg. waxaan is leeyahay dadku inta badan ma darsan doonaan. We should also help to facilitate direct engagements with you in diaspora, and also to bring the people of Somalia to you at various platforms wherever you are, whether you're in Nairobi, whether you're in Kampala, whether you're in Cairo, whether you're in Paris, whether in New York, or wherever you are. We shall try to facilitate and sponsor those interactions so that there is no difference between those in diaspora. واحد قرب joogta idaalada wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxaa si weyn noo farxad gelinaya wajiyo badan oo horteyda ka muuqda oo isugu jira qurba joog iyo qaar kaloo badan oo dal joog ah. shirkan ujeedadiisu tahay xog iyo talo wadaag ay yeeshaan qurba joogta Soomaaliyeed iyo dadka gudaha dalka ku sugan. waxa uu sare u qaadayaa isfahamka iyo iskaashiga qurba joogta iyo dadka gudaha dalka ku sugan, taasoo suurto gelinaysa in loo midoobo loona guntado dib u dhiska dalkeena dagaalka sokeeye naafeeyey. mudane wasiir, waaxda arrimaha qurba joogta ee wasaaradda arrimaha dibadda oo tilmaamahaaga raacaysa waxaa u qorshaysan in inta sanadkan ka dhiman aan dhammaystirno qaabka isku xilka wasaaradda iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed
ee dalalka dunida ku nool. arrintan waxay suurto gelinaysaa in qurba joogta Soomaaliyeed ay xog xaqiiqo ah ee xaaladda dalka ah ay joogto u helaan, isla markaana ra'yigooda iyo talooyinkooda ay soo gudbiyaan si aan daahir lahayn, loona gaarsiiyo madaxda sare ee qaranka ee ay qusayso. waa mahadsantihiin. waxaan rabaa halkan fursaddan inaan uga faa'iidaysto inaan u mahadceliyo anuma oranayo sponsors, waxaan oranayaa partnerskeena walaalaha AMISOM ee suurtageliya barnaamijkan inay naga caawiyaan. waxaa kaloo halkan ugu mahadcelinayaa saaxiibo fara badan oo halkan jooga, magacyadooda halkan kusoo koobi karin, oo laakiin soo ajiibay codsigii aan u dirnay oo ahaa inay nagala soo qayb galaan xafladdan. aadaa u mahadsantiin. runtii qurba joogta arrinteeda waxaan qabaa maaragtay in laga soo daahay waxqabadkeeda, laakiin hadda wasaaraddu waxay go'aansatay in maaragtay qurba joogta ay siiso department weyn oo runtii lagu aruurinayo waxtarkooda iyo waxqabadkooda iyo maaragtay si iyaga naftooda markay waddanka yimaadaan intaysan imaanin, intaysan waddanku soo noqon, macluumaad meeshay ka heli lahaayeen. qofkii investment rabo, qofkii rabo maaragtay research institution uu ka shaqeeyo bal meeshu wax ka heli lahaa, qofkii rabo maaragtay inuu ka shaqeeyo waxbarasho. marka runtii departmentkan wuxuu noqon doonaa departmentka ugu weyn ee wasaaradda ay leedahay, waayo waa Soomaaliya hadda inta dibadda ku maqan way ka badan tahay maaragtay 2 milyan ku dhawaad ah. dad fara badan oo gabdho badan yihiin weli ayaa potential ku leh dibadda joogaan, Mareykanka, Yurub, meel kasto, meel waaweyn ka gaaray. marka dadkaas waxay u baahan yihiin meel ay uga soo xirmi lahaayeen waddanka. marar badan ayay i warsadaan, ay dhahaan war maxaa dhacay departmentiga diaspora muxuu la shaqayn lahayaa. marka waan ku faraxsanahay dadka dalka dhisay oo wax qabtay oo soo geliyey. aabbihii baa laga yaabaa inuu joogay, wiilkii gabadha inay baxaan. marka aabbihii wiilkii iyo gabadhii miyaa la kala qaybinaya? waa maya, waa waxa la abuurayo. runtii dalka waxaa dhisay Soomaali oo wada jir ah oo qurbaha dadkii joogay oo maxay ahayd wixii maal hayeena keenay. ragga hadda madaxdii wasiiradii ugu horreeyay sameeyeen. anigu inta kaliya maanta aan rabay inaan halkan ka sheego waxa weeyaan waxaan u baahannahay kala qaybin dadka ah haba yaraatee ma jirto. aan waxaan oran lahaa hadda haddaynu waxbaynu samaynaynaa miyay dhici karta inaan rano maalintii qorax joog baa la samaynaya? waa waxaan dhici karayn. marka waa wax un la iska abuurayo una sheekooyin la raba in lagu kala qaybiyo. marka hadalku ha ku ekaado ragga imaanaya oo mas-uuliyiinta ah oo markay noqdaan madaxweyne oo kale ama wasiir ama ra-iisul wasaare ama maxay ahayd wasiiro. ninkii aad wasiirka ka hesho ilaa Sacid Qorshe baa wasiirkii noqday, qaar baa oranaya dibaddu ka yimid ninkaasoo waddanka war uma hayo. waa boos la iska riixanayo oo magac loo sameeyey maaha maxay ahayd wax loo oranayo waa la isnacab yahay, waxba colaad baa ka jirta. caqliga iyo cududa haddii la isku geeyo Soomaalida gudaha iyo tan dibaddaba sidii loo xalin lahaa way adag tahay. 30 sano waxaan ka soo baxnay dagaal joogta anaga isku wada baahan in caqli cudud isugu geena loo baahan yahay, in is wada caawinaa loo baahan yahay. qof kasta meesha uu ka soo jiidi karo waadaanta inuu ka soo jiidaa loo baahan yahay. qurba joogtu marka ay yimaadaan waxay u baahan yihiin inay integration sameeyaan, inay ka volunteer gareeyaan jaamacadaha, inay community-ga adoption ku sameeyaan, in aysan isku xirin hoteelada, aysan xoogaa dadka level kale iska gaarsiina ilaa heer degmo. qof kasta wixii uu soo celin karo uu contribute gareeyo. anigu ila haboon tahay waxaan ku jiray dadkii qaban qaabiyay gurmad qaran. marka waxaan fahmi karaa wanaagga ka imaan kara markii la isku geeyo maskax iyo caqli iyo cudud iyo iskaashi. dalkani wuu ina wada deeqaa, wuu inaga wada badan yahay. yan wax ma dhici karta ah qurba joog iyo qaran joog. qofkii ka soo tagay comfortable life oo soo wax bartay decent salary ku shaqeynaya, riskigan ku shaqeeyay. waxaan ku waayay xamar dad aad ila dhashay best friend ila ah, dad aan wada shaqeyn naga dhaxaysay. anigana ma aqaaniteeda mare bixi doonto. soo riskiga inta la qof awooday baasaboor soo haysta inuu qaato waa qof ay ka go'an tahay wadaninimo qaranimo inuu dalkan u shaqeeyo guuleysta. qofka bini aadamka waxaa loo baahan yahay inuu naftiisa isweydiiyo maxaan u qaban karaa waddankayga, waddankayga muxuu ii qaban karaa, sidoo dhahay John F Kennedy madaxweynihii hore Mareykanka. waddanku waxaan kusoo laabtay 2001 waxaan waxbarashadeeda aan ku soo qaatay waddanka Denmark oo ilaa galaaska 9aad ilaa iyo college-kayga.
waddanka ingiriiska waxaan kusoo qaatay undergraduate-kayga labadeeda master iyo PhD-gayga 2011kii ayaan imaaday waddanka. dad badan baa ay dhaheen jaamacadaan furaynaaye kaalay nala soo qayb gal. waxaan dhahay jaamacado nagu filan waan leenahay, laakiin waxaa jiro waxyaabo kaloo ka muhiimsan. waxyaabaha ka muhiimsan waa technical and vocational skill training iyo qayb kale muhiim waaye in la isla shaqeeyo. waxaa ila socdo aan soo kaxeeyey dadkii qaxootiga la soo celshay IDP wiil ka mid ah oo aan macadkeena ku tababarnay iyo wiil macadkeena ka shaqeeyo oo dadkii localka ahaa way la shaqeeyaan. dadka magaalada joogay oo aan ugu imaanay iyo dadkeena dibadda waxay u baahan yihiin fursad. qofkii Soomaaliya wuxuu tiri karo meesha uu joogo waa inuu wax ka noqdaa, meesha uu joogo waa inuu ka soo xirfadiisa la yimaadaa oo dadka aanu la degannahay ama Mareykan ha noqoto ama Yurub ha noqoto annagu waxaan nahay safiiro matala magacii ummadda Soomaaliyeed meel walba aan joogno. marka taasi waa taas ku noqon maayo, laakiin anu waxaan dareemay waa runtiis wasiir Cawad inuu tension jiray. waan dareemay waa jirtaa wax ma aha indhaha laga xiran karo qurba joogta. marka badanaana dhaliilaha iyo muxuu ahaa eedu qurba joogta ayay xigtaa oo anu aan ka mid ahay. waxaa la rabaa for example hadda qaraxii soob oo kale soobe baan joogay. qofkii qurba jooga oo dalka joogay waagaas waxaa waajib ku ah in gargaarkaas iyo halgankaas uu ka qayb galo. anu dhiig baan bixiyey oo muxuu ahaa uu qaybtiisa dhibka la qaybsado dadka Soomaaliyeed. iskuulaad baa jira fara badan inaad tagto aad wixii cilmi ah iyo wixii aqoon ah aad leedahay walaalaha Soomaaliyeed dhalinyaradaas aad gubaabisid ayaa muhiima. waxaan kaliya rabaa inaan halkan ka marqaati kaco saameynta ay qurba joogtu ku leedahay dhaqaalaha dalka. inaan kayad ahaan inta xogta annaga aan hayno inaan ka marqaati kaco, taas oo ugu horeyso dakhliga ugu badan oo dhinaca socdaalka ka soo xarooda, in percentage-ka ugu badan uu ka soo xaroodo dadka qurba joogta ah ee dalka dib ugu soo laabto. taas waxaan rabaa inaan hortiina ka caddeeyo. sidoo kaleeto waxaan iyadana halkaan rabnaa inaan ka caddeyno businesska ugu muhiimsan ee magaalada ka diiwaan gashan ee dadka ajaanibta ah ay u joogaan registrationka kule xafiiskeena inay yihiin kuwa ugu badan inay leeyihiin dadka qurba joogta ah. iyadana taas waan rabaa inaan ka marqaati kaco. dhinac kasta marka la fiiriyo, laakiin mar walbaba dadkeenan qaranjooga ah ayaa ka badan, kana maaragtay hal abuur badan, kana investment maaragtay dhaqaalo badan dalka geliya. intaas anaga waxaan sii dheernaa nafteenna hurnay oo xaalad kastoo dalku galaba waa joognay. taas marka iyadana waxaan rabaa inaad la socotaan. hal dardaaran ayaan siin lahaa marka qurba jooga oo ah ee dalka hadda jooga iyo kuwa imaan doonaba. fursad skilliska laga soo bartay dibadda inaan la inkirin oo aan la qarin. waxaa fiican qofku waxa uu bartay ee uu ku shaqeeyay marka uu dibadda joogay markuu halkan yimaado inuu ku shaqeeyo marka iyadoo yaqaanaa. marka skilliska la bedelo dhibaatada ay leedahay anaa marqaati ka ah iyo dhibaatooyinka ka yimaada. waxaan aragnay dad dibadda joogo dhaqaatiir sheegtay oo dhibaato ka timid. waxaan aragnay qaar maxaa la yiraahdaa farsamo kala sheegtay oo wixii ay ka shaqeynayaan ahayn. marka dardaarankaygu wuxuu yahay wixii xagga laga hayay in halkana maaragtay dalku ugu baahan yahay nuuc kasta oo skill ah oo la hayo dalku ugu baahan yahay. hadduu markaas isagoo af Soomaaliga yaqaana uu yimaado oo uu dalkii ku soo noqdo waa uu dhex geli karaya, dhaqankiiba wax ka garanaya, dabadeedna inay si sahlan isu dhex galaan isagii bulshadiisu way fududaanaysaa. laakiin marka uu garanba waayo dhaqankii afkii lagu qosqoslo meel kasta ay xadido oo ay soo xidho, marka dambe wuxuu soranaya warniyo meeshaadii aad ka timi iskaga noqo. marka taa waa hawl inoo taal qurba joogta. wax badanna runtii waa kaga amaanan yahay waa ka qabteen, laakiin in la sii xoojiyo dowladda Soomaaliyeedna maxay wax ka qaban kartaa aynu ka wada qaban karnaa laga shaqeeyo. dadka gudahana dadaal badan bay hayaan inay dalkooda kusii noolaadaan ayay go'aansadeen una dhaqnaadaan. dib u dhiska dalkana qayb weyn ay ka qaataan. anu waxaan isleeyahay mar labaad haddaanu imaado maanta isdhexgalka taxaddi weyn oo dadkii iyagoo qaangaadha tegey ma jiro oo haysta. ha isqariibinina dalka siyaasaddiisii, waxbarashadii,
ganacsigii run ahaantii oo qurba joogtii dalka kusoo noqday shirkadaha waaweyn ee naajixa ama isgaarsiin ha noqoto ama bangiyada ha noqoto ama ganacsiga kale ee alaabada ama commoditieska laga ganacsado ha noqoto ama iskuullada wax badan oo weyn bay kusoo kordhiyeen oo ay ku biiriyeen halka loo baahan yahay marka waa in gacmaha la isqabsadaa dalka la aaminaa ciddii qurba joog ahee dalkooda kusoo noqon kartaa ay kusoo noqdaan hirani dhaweyn mahalabsada haybtiyo qoladiinu maheer qaranba waryaa haybtiyo qoladiinu maheer qaranba waryaa